إلهي بقى مهدله إلهي بقى مهدله نقول سماي فرصة النسيجي أنت نوع علماء النوتر هذا وندعيه ووح dhifyo naadir dadku ay u helaan marka aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa ciddii noo keentay khayrka iyo intaasoo culimo ah iyo ducadii iyo wixii wanaag ahaa dadka farteen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay baan uga mahadnaqaynaa in karsiiyey idinkana waa idinka mahadnaqaynaa intii ka hoshootayna waa uga mahadnaqaynaa waananu jecelahay mar walba iyo goob walba intanoo culimo ah oo ummadda o dhan ka imanaysa oo khayrka iyo wanaagga if iyo aakhiraba nafaraya inayna xusuusiyaan annaga iyo ummadda waa hiil waa garabgal aanu aad iyo aad soo dhaweynino dadka ka shaqeeya diinta iyo wanaagga soo dhaweyntaa kadib hadal badan malaha maanta halkan kan fura oo waxaa la idhahdaa dee ninkaa dheera wax lama tuuso ninkaa aqoon badanna wax looma sheego dee marka intanoo culimo anigu hadal aan kii aanu qanin dee halkan ma yaallo marka waa iska gaagaabsanaya marka hore aniga iyo culimada anigu waxaan u malaya inta halkan fadhida ma wada aqaano badankooda waan ka weyna inta horta aan garanaya sheekh xasan cabdisalaam baa ugu ciro weyno dee aniga xaggayga waa ka inan yar oo caruur sheekh mustafa on dee islahaw ani weyno waa kan iska riixay labadaba dee dhan ba iga macalimiid oo sheekh mustafana ummadda o dhan baa dhegeysta ilaahay ka abaalmariya wax badan buu ka taray dhinaca diinta nabadda horumarka aqoonta waa nin aftahamo ilahay wax siiyey oo maqaal kastoo la dhegeysto waad ku nagaanaysa marar buu mashkalada ay haysa aan ka dhegeystaa isagoo xalinaya jazaaka allah khayr sheekh xasanna dee waa raggii soo bilaabay diinta sideetmeedii soo iyagoo caruura dad badan soo tababaray anigaygana aan wax badan ama bawaagu ii keeno i baray ama waano intaana soo joogo aniga culimada horta aniga culimada waxaan ku garaadsaday iyadoo culimadu aad iyo aad loona karaameeyo ilaahayna karaamiye awood siiyo wixii ay dhahdaan baa laka aqbala markaaba marka maalintii dhowito taarikhdu waa iska saxaysaa markii la yidhi janan baa la socday waadada ayaan ku ihi janan iyo culimo maxaa isu keenay anugu jananada sas baan ka qabayo jananadii culimadana laaya aayadana fasakhay markaan janan maqlo kii yararka naga xidho waadada ee aayadaha naga bedelay dee anigu sheekh culimada la socdo oo sheekh oo xaggii diinta jannabo ka qaatay dee taaga waa ku ducaynaya waana kaaga dambaynaya anigu dee janan magaalo cornelia baa la yidhahdaa janankii islaamka noqo oo waa kugu dabagela raacadda inoo qaado baaraka allah fiik janan diinta inoo haya weliba saadaa adiga markaa jananka soo socda walaa fiisa walaa hadal sheekh garoon kale waxaanu sii dhigay ciidan dee sheekha seeftii ku qaado waxaanu idinka maganahay laba duco iyo laba farimood oon iska codsanayna horta somalilan iyo soomaaliba nabad gu duceeyey dowlad ahaan maaha tuulo nabad gu duceeyey soomaali khilaafkaa ku batay oo meel walba gaaray khilaafka baa aad iyo aad inooga ogfaaday soomaali inta ku hadashaba way ka simantay meel waliba marka haddaa culimada tihiin ilaahayna aanu barino nagulana dadaala in dadka loogu duceeyo door weyn aa ka qaataan si dadkii hore in dadka la baro nabadda oo khilaafka laga on markaa yaraan idin sheegaya mig soo kogay culimadu sanadkii mar bay soo bixi jirtay geela maraha laga bixin jiray iyagoo boqolay iman jireen waa la kala boobi jiray tawdaa la shido ayaa geela maraha iyo sekada iyo ducada waxay ahayd yani xajkoo kale markay culimada daan markay jiidaa marayaan hawdkoo dhan ma mari jiray dee idinkana sidoo kale ad ka raba ama gawaari ka xaysta ama lugeeyo ina sheekh cali sufaan halkan maraya haddii la yidhaahdo hubka waa la wada dhigi inaad tiraa dadka bal aakhira intaa gaaraysaan nabadda oo reerka isula inaysaan iyo tuulada iyo ceelasha la isku haysataan dee iska daaye waa mashkilada suaal soo baxdee taa waad ka codsanayaa in nabaddaa duco iyo ficil ba ku darsan janan calan u qaado nabadda soomaalida tuulo walba dhexdeeda maaha dowladda waa inu dabada ka soo bilaabana waana caam meel walbay ka taagantay maanta laba somalilan waxaa uga ducaysaan laba waxyaalood duco waa laga aqbalay oo waa nabadda oo haddii runta laydin sheego
nabadda tiirka koowaad waa culimada mustafe iyo xasan bayna fadhiya iyo intooda kale annagoo jabhada gaar fadhina ayaynu la daba taagnaa qalad baa ku jirtaa ka daa waa nimanka noogu dhiiran maanta haddii qalad dhaco wax layga tirsado oo madaxweyne ama dowladdu way qaldan tahay nimanka aan cidda weydiinin inta albaabkayga dhuftaan dhig wax hadayso waa iyaga saaxiibtinimo way igu dhici karaan aqoonna way igu dhici karaan go-aankooduna waan amisan inaan danaysanan iyagu ee waxay ka hadlayaan dad qaran ay tahay mararka qaarkood aan iskula diidana ray marka culimadu heerkiisa joogaan iyagaa kow ka ah culimada lafteedu waxay u baahan tahay looga ducaynaya khilaafka waanu wareeranaa labadii culimo hadday kala jiitaan wax markay laba kitaabo kala jaad ay akhriyaan midna seefta qaado midna idhaa mee adeer sulxa ku eg dee waa dhibaato marka culimada lafteeda in aada iyo aada loo badiyo xagga nabaddan anugu ogolay waayo nabadda iyo sulxaa dhaama in la isu qaado budka marka intaa la xoojiyo waxaa la dhixi culimaa ee sulxaa wada ee mashkaladda caqli ku xalinayana arday baan ahay waan daba socda marka in aad taana ka qayb gashaan baa loo baahaya ta saddexaad faqriga soomaali cumuum ka dhigay ee soomaali ay la wada baahan tahay cidda ka saari karta ee mas-uuliyadda saaran tahay waa culimada waan ku celinaya daliilla waan haystaa culimada loo atiine haddii sekada culimadu maamusho sekada somaliland maanta sheekhaa diintaan u dhibin waa dastuuri waanu fulinay shaqo kuma lihin culimadaa loo dhibin fudmaduna waad joogtaa qof waliba oo waa ka raale anigoo madaxweynaha ka bilow in sekadii la ururiyo oo dadkeena dayacan lagu daryeelo waana taqule lagaa bixi kara dhibaatooyinka gacan bini aadmi oo kilise laga soo ururiyo waxba naanfici maaya soomaali anfici waaya soddon sano wadi weli meel ay khayr ka keenaan lama arag horena in badan baanu idhahda markaa tana waxaan iska codsanayaa maanta isu dhantihiine magaalo walba sekadeedu ku filan tahay iyo deegaan walba sekadii ha la ururiyo oo sidii islaamku sheegay ha loo qaybiyo oo annagu waan ku wareejinay ciddii hawshaa lahayd oo wasaaradda oo culimada kale ag joogto degmo walba waan ku celinaya somaliland waxaan isleeyahay gobol walba iyo distrig walba sekadeedu way ka saari kartaa 60% faqriga haya dee sheekhiyaal xantana waa la isla yoogay maanta lacagta xagga culimadu badanta shirkadihii maanta dee culimadu badan markaa inoo maamulo oo faqriga inta iska saar intaas waa inta arsiga culimadu waxay kala qabato oo aad iyo aad u soo gurto mar labaadka aad iyo aad baan isku mahadnaqaynaa waxaa koran culimada ku baraarujinaya dadku waxa haysataan awood aan cidina haysan aad baan idin dhegeystaa dadku waxaad tidhaahdaan sidaa ay cawda u dhigteen masaajidka ma jirto cidka loo dhegeysta culimada waxaad ka rabaa soomaali magaca ku hadlaa maanta dhibaatada joogta labadaa arrin baa haya faqriga iyo khilaafka waanada wax ka badan inaad qaadaan oo la arka idinkoo labaa ka shaqeynaya anaa ad ku raaco 3,000 ee cajirood uu sheekh mustafa ee dhegeysanayso dee intee sheekh bashir baa ka dhimanay bilaalaha waxna ku dar dabcad waa soconaysa sheekh mustafa wala war joog hayro qaldanto kulba meel ka xaalay aan arkay ayaan dee u soo jeedinayaa intaasaan naga dhiman waxaan filayaa laba in wax badan kaga baxayno madaxda si darka hogaamiyaha la dooranayo lagu daalaya waxa hayaan waa yartay waa ta koobaad adduun ay wax ku maamulaan ma hayaan waxaan ku bixi karaa inagoo labaa ku tusheena intaasi waa iga waarimadayda aad iyo aad baan mar labaad idinka mahadnaqayaa waa idin soo dhaweynayaa waa gurigiindii markaad doontaan shaksiyan halkaas waa sidaa ay ku timaadeen bay ka dhib tahay oo aynu wixii muslimka iyo soomaali lagu hornimay laga wanaajiyo wanaaga waa idinla dhisaynaa warwarra ma leh culimada imaatinkeeda markii inoogu horreysay aad baanu iska xilsaaray